isagoo bulshada kala hadlayay warbaahinta qaranka ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu si guud uga hadlay xaaladaha dalka sida ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarka guud ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano oo ay dhibaatooyin kala duwan soo martay ay maanta taagan tahay halkii ay ugu wanaagsanayd. waxa kale oo madaxweynuhu si faahfaahsan uga hadlay safarro toddobaadkii la soo dhaafay uu ku kala bixiyay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. maanta dalkeenu intii uu soo maray 30 sano la soo dhaafay waa maalinta ugu rajaroon yahay waana maalinta dadka Soomaaliyeed ay qabaan. waxaan qirayaa intaan dalka soo maray gobolladoo dhan deegaanadoo dhan aan soo maray dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen la soo fariistay arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha maamul samaynta ayaan kala soo hadlay iyo duruufahooda gaarka ay ku sugayeen. hal ka mid ah noo muuqato waxay tahay weli waxaan xambaarsannahay oo garabka noo saaran shalay waxaan qabanaynaa mar walba wixii naga dhacay shalay dhacay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday tabashooyin badan oo ay qabaan bulshada qaarkeed waxaana uu madaxweynuhu ka raali geliyay bulshada haddii ay jiraan dad tabanaya dhibaatooyin ay u geysatay dawladda Soomaaliya hadday tahay dawladdii militariga iyo kuwii ka dambeeyay intaba. waxaana madaxweynuhu ka codsaday bulshada inay iska ilaawaan waxyaabihii horey u dhacay ayna ka wada shaqeeyaan horumarka. anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qof kastoo Soomaaliya magaca dawladda lagu dhibay oo dhibaato lagu gaarsiiyo horey haddii ay tahay ku islaashikii ka hor iyo kadib haddii ay tahay horta waxaan rabaa inaan aniga uga tacsiyeeyo uga cudur daarto magaca dawladnimada dadka wixii dhibaato ku gaareen. haddana waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis inaan helno dawlad aan dadka dhibaato u geysanayn. marka dadka Soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogtaan raalli ahaada wixii magaca dawladnimada idinku gaaray ama dawladdii hore 90 ka horreysay ha noqoto ama kuwii isu soo xigxigo ku meel gaarka iyo midaan aniga maanta madaxda ka ahayba cid kastoo Soomaaliya oo tabanaysa in dawladdu ay dhibaato u geysatay meel kastoo ay joogtaba waxaan rabaa inaan ugu cudur daarto magaca dawladnimada inay raalli ahaadaan. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay arrin wanaag bay hadal hayeen bulshada in badan oo kamid ah taasoo ahayd in madaxweynuhu oo magaalada Garowe ku saxiixay in la kala jaro gobolka Mudug oo markaa kala raaco maamulada Puntland iyo kan hadda laga dhismaynayo gobolada Mudug iyo Galgaduud. Garowe horta heshiis la saxiixay ma jiro. waxa Garowe ka soo baxay waxa aan communique sidii kulankeena hore Muqdisho ka dhacay oo sidoo kale uga soo baxay warmurtiyad kana warmurtiyadu waa madashaasna looguma talagelin inay heshiisyo gasho oo ay wax saxiixdo maba loogu talagelin sideeda. madaxweynaha iyo madaxweynayaashu inay meel inta tagaan wax isla saxiixdaan maba loogu talagelin laana aniga ma doorkaas ma aha ayaguna doorkaas ma aha madaxweynaha inay heshiis la galaan wax la saxiixdaan. dalka xukuumad federaalna waa leeyahay xukuumado oo heer gobolna waa leeyahay. madaxweynaha oo bulshada Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda joogta su'aalo ay ka soo weydiinayeen xaaladda guud ee dalka uga jawaabay ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrinta ku saabsan in doorasho dalka ka dhacayso marka la gaaro 2016 waxaana madaxweynuhu mar kale ku celiyay in waqti kororsi uusan jiri doonin doorasho xalaal ah ay dalka ka dhici doonto sidii loogu talagalay. kororsiimadu khilaaf ay leedahay waa garanayna 2011 khilaafka iyo buuqi dalka ka dhacay mar kale miyaan haddana u xiiso qabnaa inaan sidii Kampala Accord iyo road map inaan ku noqon maya xiiso ma qabno jihadaasoo dhan inaan aadno diyaar u nahay jiha cusub inaan aadno oon ka war doonaan rabnaa oo aan ahayn jihadii hore. 2016 dalka doorashaa ka dhacay fikirka iyo caqliga ay ku salaysan tahay waa midkaas farsamadana guddiga shalay doorashooyinka iyo baarlamaanka federaalka ayaa wixii farsama iyo ummadda Soomaaliyeed oo wada tashatay ayaa farsamada suurtagalka ah labadaas wax aan ahayn ayaga noo keenaya jaaliyad. Dhamaystirka maamul goboleedyada dalka iyo hirgelinta nidaamka federaalka ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ka hadlay waxaana carabka ku dhuftay in gobolada Mudug iyo Galgaduud maamul samayntoodu ay meel wanaagsan marayso. Hiiraan iyo Shabeellada Dhaxana maamul mid loo samayn doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Hiiraan ayaga qabsad dhaqankoodii qabtay siyaasad ma aha dib u heshiisiin waa laakiin maanta dib u heshiisiin dhamaato feeskii labaad ama qaybta labaad oo maamul samaynteeda ayaa ayaduna dib u bilaaban doonto. gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kale asna dhawaan ay ka bilaabanay dib u heshiisiin oo dib u heshiisiintu sideed waa iska socotaayo meel ay ku dhamaatay iyo malahan laakiin meel ay ka bilaabatay iyo waqti ay bilaabatay leedahay. labadaas gobol waa la isku daraa maamul ka dhaxeeysan siyaasadda dawladdu waa sidaas in gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe
la isku daro dowlad goboleed ay samaystaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa wax laga weydiiyay dadaalada dowladda ee ku aadan wax u qabashada qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalka caalamka gaar ahaan Yemen, Kenya iyo Koonfur Afrika. waxaana uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dadaallo ay wado dowladdu qaxootiga Yemen adoomo lagu soo daadgureeyo dowladdu ay u dirtay haddana ay ku sugan yihiin xeebaha dalka Yemen. daacadaas aan idinla hadlaayo doonyo ayaa jira taagan maxaan ku raadayay xuduudaha badda Yemen inay soo qaadaan dad soo marka doomankii hadda magaalo inta tageen oo suurtageli weyn in dad laga qaado ayaa haddana ay ka tageen magaalo kale haddana ay joogaan dadkiina inay inta soo socon karto imaan karto magaaladaas iyo wixii jooga haddana la soo marka duruufuhu way adag yihiin laakiin dowladdu kuma dareen la'a waanan ku mashquulsanahay oo maxaan ku raadayay dadkaasi qaar badan oo kamid oo ayagu isu soo dabarana way soo gaareen Soomaaliya oo gobolada waqooyi bari iyo maxaan ku raadayay waqooyi galbeed intaba way soo gaareen. su'aalaha ay bulshadu soo weydiisay madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagu marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan faragelin shisheeye oo dalkeena lagu hayo waxaana madaxweynuhu uga jawaabay arrimahaasi in faragelin ay jirto isaga iyo madaxweynayaal goboleedyada oo wada jiraana ay wadaan qorshayaashii looga hortegi lahaa faragelinta aan Soomaaliya u wanaagsanayn. marka Soomaaliya waa la faragelinaa la dhaafi maayo laakiin annaga Soomaalida ay ugu xiran tahay hadba sidaan faragelinta isaga maarayno mideeda dhibka noolana aan u maarayno midda faa'iidada noolana aan u soo dhaweysano waxyaabaha faragelinta aan u maaraynayno waxaa ka mid ah wadajirka aniga iyo madaxweynayaasha gobolada wadajirkeena waxay ka mid tahay faragelinta negative-ka ama xun waxyaabaha aan ku maaraynayna ka mid tahay faragelinta fiican oo maalgashi in dadku uu helo dalku uu helo dib u dhis uu helo oo saaxiibo kaalmeeyo uu helo oo kumanaanka muxuu ahay mucaawanada maalin walba imaanaysaa waa faragelin fiican waan fududaynaynaa waa soo dhaweynaynaa. Ahmed Ali Kahiye.